waddan walba oo dowladnimadiisu aanay weli xoog lahayn mar walbo doorasho la soo gaaro waxaa ku dhaca duufaan siyaasadeed sida loo maareeyo ayay ku xirnaan doontaa in maamulkeenu uu ka soo haro duufaantaas iyo inuu duufaanta la duulo maadaama aad tihiin xildhibaanadii reer galmudug mas-uuliyaddiina koowaad waa galmudug mas-uuliyaddiina koowaad ma ahan dowladda federaalka ma aha musharax gaar ah ma aha magaalo madaxda dalka mas-uuliyaddiina koowaad waa galmudug midaysan degan xasiloon u adeegaysa shacabkeeda sidaas daraaddeed waa inaad indhaha doorashada aad ku fiirinaysaan mar walba ay ahaato inaanay wax kala laasaan ka dhalin maamul goboleedkaas hadda hana qaaday oo si weli socod baradka oo u baahan in la xanaaneeyo u baahan in la ilaaliyo waddanku wuxuu ku jiraa xaalad adag oo loo baahan yahay in kulligeen aan isugu nimaadno oo la samato bixiyo waa aragtaan waxa hiiraan ka jira waa aragtaan xaaladda geda ka taagan waa aragtaan xamar waxa ka socda waxaa la rabaa in laga badbaadiyo galmudug waxaana looga badbaadin karaa dadka reer galmudug oo mas-uuliyiinta ah oo idinku ugu horeysaan inaad qaadataan mas-uuliyaddaas in galmudug dib loo soo dhiso waa adag tahay inay adag tahana anigaa og meeshaan soo maray wiilasha iyo gabdhaha weli dhulkooda cadowgu haysto rajadooda waxay ku xiran tahay idinku sidaa u dhaqantaan rajadooda waxay ku xiran tahay idinku galmudug sidaa u ilaalisaan dadka soomaaliyeed oo reer galmudug ah oo aaminsan waa markii hadda la soo gaaray in horumar la helayo mustaqbalkooda waxay ku xiran yahay idinku sidaa u dhaqantaan arrimaha doorashooyinka ee xasaasiga ah ee dalka ka socda waxaa la rabaa reer galmudug haddaad tihiin in ahmiyaddiina koowaad ay ahaato waa inay galmudug ka dhacdaa doorasho aan dhibaato reer galmudug u keenin hadday ka dhacdo doorasho xumbaarsan kala qaybsanaan iyo tafaraaro ka soo hari maysaan waana gebteen mas-uuliyaddiina haddii ay ka dhacdo doorasho markii ay soo dhammaato galmudug mugdi gelisa mas-uuliyaddaasaa qayb ka tegi qofka mas-uulka ah marka laga rabo inuu wax qabto ma aha inay tahay marka ay wax hagaagsan yihiin waa marka ay wax halaysan yihiin ma aha marka laga rabo inuu wax qabto marka ay xaaladdu fududahay waa marka ay xaaladdu adag tahay ma aha marka go-aanku qof walba uu iftiin u yahay laakiin waa marka go-aanku qof walba uu humaag uga jiro ayaa laga rabaa qofka madaxda inay gaari karto go-aan masiiro u ah dadka uu markaas matala dadka soomaaliyeed waxay fiirinayaan galmudug sida aad uga maareysaan xaaladda siyaasadeed oo dalku hadda galay waxaan rabaa inaa idin xasuusiyo laxa weyna iga haya galmudug sababtoo wakti xoog badan iyo maskax aan soo gelinay kulligay marka wiilka iyo gabadha jooga degmooyinka weli cadowgu haysto waxay rajo ka qabaan inay matalaan dad soomaaliyeed oo reer galmudug ah oo ayaga u maqan inay xoreeyaan si ay u helaan nolosha idinku aad haysataan mid lamid ama dadka kale oo degan degmooyinka xorta marka waxaan idinkula talinayaa anigoo aaminsan inaad iga aqoon badan tihiin fahamsantihiinna waxaan idinkula talinayaa inaad foojignaataan oo u foojignaataan midnimada iyo wadajirka dowladda iyo shacabka reer galmudug inaadan aqbalinina
in nidaam doorasho oo la isku khilaafsan yahay meeshaas laga hirgeliyo inaadan aqbalinina inaad qayb ka noqotaan khalalaasa yimaado qof walbo idinka mida taariikhduu qayb ka noqon doonaa taariikhdaasna waxay ahaan doontaa wuxuu xildhibaan ahaa markii galmudug ay hore u kacday ama markii gadaal u dhacday fariintaydu marka waxay tahay waxaan rabnaa dalka inay doorasho ka dhacdo haddaan reer galmudug nahayna waxaan rabnaa inaanay eelo nagu reebin waxaan rabnaa doorashadaasi inaanay gadaal nooga dhigin horumarkii aan hiigsanayna ama ku tallaabsanayna waxaan rabnaa markii doorashadu dhammaato in reer galmudug ay kasii shaqaysan karaan shuruucdoodii dowlad dhiskoodii xareynta degmooyinka iyo maamul wanaag waanay xallin khilaaf cusub ka shaqayn sababtoo ah waa ka soo gudubna intiisa badan intaas ka sokow aniga waxaan ahay murashax madaxweyne sida dad kaloo badan ay yihiin waxaana u raadinayaa kursiga madaxweynenimada inaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed wax ugu qabto ee inaan ku fariisto u raadin maayo waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka faa'iidi doonto haddii Ilaahay ugu guuleeyo safarkaas aan u socdo waxaan aaminsanahay inay galmudug ku saldhigan doonto